waxaan leeyahay wiilasha ciidamada khaasatan wiilka saakay saadaqa lagu bedela leeyay maxaa lagu sameeyay waryaa hooy farxaanow dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasakh ku jirta lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacaliya ha gelin waa wiil yar taa mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimriga ka dhibna hadii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jira qolka dhiiqada ha la gelin nima ka baxay saakay ka bax adigana ha gelin darajo ma aha maxamed cabdullaahi farmaajo iska mala darajada maxaan ku yiraahday kii kale xoo ahay xijaar iska male darajada qaanuun bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allahuna bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sida hadda uu sheegay wasiirka amniga iyo gobernatooraha gobolka ahna duqa magaalada waxaa tacsi u diraynaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka dhintay runtii sarkaal haliyay ah oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka 7 subaxnimo intaan la gaarin salaada markaan tukanaa aniga isuuka ay dambeysaan wada hadalay wuxuuna ku jiray oo ku maqnaa howlgalka lagu xoreynayo sida haddaba la sheegay khawaarijka looga xoreynayo dalka looga xoreynayo sida hadda uu gobernatooruhu sheegay kuwa kalena waa dhiman doonaan wax loo harayo ama lala joogayo ama cid wax yeelaysa ma aha ciidanka iyo ummadda Soomaaliyeed waxay go'aansatay xaaladda ay ku jirto xaalad ka liidata oo maanta ay gaari lahaayeen malaha marka ceelasha laga gubay wadooyinka la kala xiray marka waxa dawladda iyo shacabka ciidamadu go'aansadeen cid kasta oo dhimanaysa kolba waa la dhiman lahaa sidaan in lagu dhinto oo la iska dulqaado muxuu ahaa cadowgan la iska dulqaado waana loo midaysan yahay inta kale ciidanka booliiska iyo ciidanka militariga iyo ciidamada kala duwan iyo inta amniga muxuu ahaa ku shuqul leh waxay u diyaar yihiin inay wadadu mare ay maraan waxaad ogtihiin waxa naga dhintay dad badan oo qaali ah oo iyagu ay dileen oo aad u tiro badan isla kuwii un buu la mid yahay laakiin waxa go'aan ku yahay inay dib dambe ayaan ugu dhex jirin ummadda Soomaaliyeed ee meel la iska saaro intaasaan muxuu ahaa sida hadda madaxdu sheegtay aanu tacsida ugu diraynaa ehelka iyo qaraabada iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي شرفت لي كسو دوادا وربحين نيوز بليز هدات جنال قعصب تاي سسكراب لايك جري سينا شير جري سو وقارو ميل آد أفك إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت مقالقا وحان كغهد لدونا سرايا قوتي فرحان محمد آدم فرحان قرولي waxaan tacsiyad tiiraanya leh hawada u soo mariyay madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidee ayuu u dhacay dilka taliye Farxaan Qaroole muuqaalkan ayaa kaga hadli doonaa insha Allah hadduu alla ka raali noqdo mar qura ayaa social media qabsatay geerida Allah u naxariistay taliye Farxaan Qaroole kaasoo miino dhulka loogu aasay la kacday asigoo ku jira howlgalka marqura baraha bulshada qabsaday geerida aadka u xanuunka badan ee taliye Farxaan dadyo aad u fara badan ay ka naxeen geerida ku timid taliye Farxaan oo dad badanna ugu duceeyeen jannatul firdawsa inuu alle subxaanahu wa tacaala uu geeyo dadka ducadooda Allah u aqbalo sidoo kale waxaa u soo tacsiyey madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bartiisa Facebooka ugu soo tacsiyey asagoo ku soo qoray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa ehelka qaraabada dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada booliska uu ka geeriyooday taliyihii qaybta guutada booliska gobolka Banaadir sareeya guute Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole wuxuu ka geeriyooday ka shahiiday asigoo ku jira
howlgal lagula beegsanayo kooxaha arxanlaawayaasha ah ee argagixisada. jenaraal farxaan qaroole waxa uu ahaa sarkaal kaalin mug weyn leh ka galay xaqiijinta ammaanka dalka iyo la dagaalanka argagixisada, ayagoo aynu ahayn markii koowaad argagixisada kula dagaalamo deegaanka Basro iyo deegaano kale oo dhowaan xuduudaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Banaadir. waxaa alle ugu baryeynaa inuu hoygiisa ka yeelo jannatul firdawsa, samir iyo iimaan allaha ka siiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka shahiiday, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ka tirsanaa, ayuu ku soo qoray boggiisa facebooka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. akhyaarta sharafta badan, wuxuu inaga mudan yahay in aan u duceyno, waayo maanta waxaan u awoodno keliya waxa ay tahay in aan u duceyno oo alle aan ugu barino inuu jannatul firdawsa ka waraabiyo. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa geeri aad iyo aad u naxdin badan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan qalbiyadooda ka guuxayso. ducada aan u badino walaalayaal, meel walba aad dunida daafiis ka joogtiin, waxaa idinkaga tegi doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. kulli nafsi daa'iqata almawt. waxaa la yidhi geeridu nimaad garanaya geeljiray ku roon tahay. waxaa kaloo la yidhi geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geeridii dishay geedkaa habbo. geeridii farxaan qaray dishay geedkaa habbo oo gobolkaa hadumo. farxaan qaray waxaan ku xasuustaa maalintii dalka Soomaaliya haadaanta la dug joojiyey, burburka uu cagta u saaray ninkii la odhan jiray maxaan ku dhahaa Saadiq John. wuxuu ahaa ninkii ka badbaadiyey ee qarannimadiisa garab taagay. inuu naftiisa waayo wuxuu ka doorsaday inuu dalku dumo. waa kaa naftiisii ku waayey. nacam, inuu naftiisa waayo ayuu ka jeclaaday inuu dalkiisa dumo. taariikhdu iyadaa dadka xusta. gobonnimuu ku dhintay, geesinimuu ku dhintay, farxaan muu dhiman, wuu dhuuntay. waxa ka hadhay magac dheer iyo maalintay qadhaadhayd inuu shisheeye u dabci waayey uu taliyihii guud ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska u dhabarka saartay markuu ninkii Saadiq John bannaankaa ku tuuray. Saadiq John maanta yaa aamini balwakaas siyaasad kama hadlayo, taariikhdeeda is warranta. farxaan qaray Allah u naxariista, si weyn baan uga naxay sidaan cilaamka imka ka arkayay warbaahinta. dee been maahe waa run. ilaahay naxariistii janna ha geeyo. naftiisii waa nebigiisa ma waayo. ummaddii Soomaaliyeed iyo taariikh wanaagsanna waa loo hayaa. Soomaad garan markaa nin walba dee waayaha is warramee. farxaan iyo odawaa oo kale waxaan u malayn inaanu dowladina heli doonin inta soo socota. malaha inay qarni tagay ka hadheen iyo inay qarni soo socda horu dhac yihiin baan kala garan lahaa. odawaana ilaahay balaayada ka ilaaliyo isaga iyo shakhsiyaadka kale ee maxaan kore gobonnimada jecel. marka aad baan naga xumahay geeridaasi. kollay geeri la huri maayo oo qofba meelin buu ku qoran yahay. waxaan se ka xumahay inuu gacan bini aadan ku baxay oo qarax lala beegsaday. farxaanow ilaahay godkaha kuu nuuro, kafanka mar walba allaha kuu jadiidiyo, qabrigana allaha kuu faaliyo, ilaahay kuguma diiqo ee qabriga ilaahay kuu faalaliyo. ehlu jannaa tahay, saaca la jooga jannada ku jirtaa. magac iyo sharafna dalka waad kala tagtay. laakiin raggii Soomaaliya maalintii haadaanta la dul joogsaday, adu waxaad dhaafsatay naftaada inaad weydo. inuu dalku dumo inaad naftaada weydo ayaad dhaafsatay. waa adiga adoo dalkaagii weliba difaacaya oo ciidankii militarigu joogo iyad adigoo booliisa dalkaagii difaac dhabarka u saartay. runtii si degdeg geeridaasi igu soo gaadhay. degdegaasaan u soo duubay. iga raalli ahaado. assalaamu calaykum.